Magaca Fatma kow iyo toban waxaan dhigta iskuulka Kablanuma waxaan ka imid Turkiya Mogadishu ayaan ku noolahay Soomaali waan jeclahay astaanta qaran ee labada dal waa mid muujinaysa saaxiibtinimada dareenka xambaarsan ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga dabayaaqadii sanadii 2011 ayay ahayd markii ay walaalaha Turkiga u soo gurmadeen shacabka Soomaaliyeed iyadoo wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa iyo afadiisa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho madaxweyne Erdogan ayaa xilligaasi daahfuray gurmad ballaaran oo ay walaalaha Turkiga ugu tala galeen shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ku baaqay gargaar caalami ah iyo inaan Soomaaliya meel cidla ah looga tagi karin Soomaaliya toso iskutir sadaye alpakina taktarane tageda velegine indike sutohayo indike sutamaye adamu tan iyo markaasi Turkigu wuxuu dhexda u xirtay horumarinta adeegyada bulshada ee dalka waxaana lagu xusuustaa dhismaha wadooyinkii burbursanaa ee caasimadda dhismaha cusbitaalada sida cusbitaalkii guud ee Digfeer dugsiyada waxbarashada iyo horumarinta ganacsiga iyadoo shirkadda Turkish Airlines ay noqotay shirkaddii ugu horeysay ee duulimaad caalami ah ka sameeyay dalka muddo 25 sano kadib qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee wax ku bartay dugsiyadii ay caasimadda ka hirgeliyeen Turkiga iyo gabar u dhalatay dalkaasi oo wadatay magaca Soomaaliya ayaa dhawaan soo hooyay guulo taariikhi ah kadib markii ay tartamo aqooneed ay bilado kala soo hoydeen dalal ay ka mid yihiin Kazakhstan iyo Azerbaijan horta iskoolka waxbarashadiisa oo fiicantay markaan waxaan tartan u aaday wadanka Kazakhstan oo gold ka soo qaaday horta waxaan ku tartamay computer oo project horta meesha arday badan wadamo badan waa isku yimaadeen marka qiyaasta 50 wadan 60 wadan meelaha soo yimaadeen marka aniga gold medal soo qaaday bil dahabi waxaan ka qayb galay tartan ka dhacay wadanka Azerbaijan tartankaas waxaa ka soo qayb galay 53 wadan 53 wadan waxaa ka guuleystay oo bil dahab ku qaaday 4 wadan Soomaaliya South Africa Azerbaijan iyo Turkiga tartankaas wuxuu ahaa maadada chemistry-ga project la diyaarinayo oo ku saabsan dhanka beeraha waxaan leeyahay saaxiibo Soomaali muallimin Soomaali ah ayaan waxbarto qoyskayga ayaan halkan ku noolahay 3 sano ayaan halkan ku noolahay Soomaaliya ina ku noolahay faraxsanahay